qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Finland ayaa kulan dardaaran iyo sagootin ah magaalada Turku ugu sameeyay ciyaaryahan Farxaan Cumar oo markii ugu horeysay loogu yeeray waajibaadka xulka qaranka ee dhawaan ka qayb galaya ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa ee ku qabsoomaya wadanka Uganda. kulankan wuxuu ahaa kulan ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Finland gaar ahaan magaalada Turku. kulankani wuxuu iskugu jiray dhiirigelin iyo sagootin aan sagootinayno Farxaan Cumar oo ka mid noqday ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya. kulankani waxaa ka soo qayb galay bahda sportiska ee ku dhaqan magaaladan Turku. waxaa looga arinsaday sidii wax loogu mataqaanaa lagu taageeri lahaa Farxaan maadaama uu nasiib u yeeshay inuu ka qayb qaato. bishii Oktoobar 2019 ciyaaryahan Farxaan Cumar oo ka mid ah kooxda BIF ee ka dhisan wadanka Finland ayaa kooxdiisa u soo saaray horyaalka heerka labaad ee Division 2 isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay taariikhda iyo guulaha uu la sameeyay kooxda reer Finland. in lagaga yeero waajibaadka xulka qaranka ma ahan wax fudud. waxaan u mahad celinayaa madaxda xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ee dadaalka wanaagsan ugu jira horumarinta guulaha xulkeena. waxaan rajeynayaa in aan tiigsano guulo waaweyn aniga iyo saaxiibaday ayuu laacib Farxaan Cumar u sheegay goobjoog. Cabdullaahi Cadceed Rooble oo ka mid ah dhalinyarada kulankan soo qaban qaabiyay ayaa u mahad celiyay madaxda xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isbeddelka muuqda ee iminka ka jira xulka qaranka. ciyaaryahanka Farxaan Cumar waxa uu degan yahay magaaladan Finland gaar ahaan Turku. marka jaaliyadda ayaa kulankan sagootinta ah qaban qaabisay isla mar ahaantana lagu dhiirigelinaya inuu xirfadiisa uga faa'iideeyo qarankiisa Soomaaliya uu soo mataqaanaa qayb uu ka yahay hadda xulka qaranka Soomaaliya. Farxaan waa markiisii ugu horeysay Finland waxaa horay ugu baxay ciyaaryahanno kala duwan oo ka baxay magaalada Helsinki. 2 ciyaaryahan waxa weeye ciyaaryahankii saddexaad ee ka baxa Finland. marka jaaliyadda waxay iska xog wareysatay oo tashiyo iyo mataqaanaa guwaababa kadib waxaa loo mahad celiyay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo gudoomiye ka yahay Cabdiqani Saciid Carab. waxaan leenahay hawsha awoodiin Allah idinku garab galo. howl aad u wanaagsan ayaa u wadiin isku xirka dhalinyarada gudaha iyo dhalinyarada qurbaha ka ciyaarta ama ku kortay inaad isku xirtaan waa arin aad u wanaagsan. waxaan leeyahay gudoomiye hawshiina aad iyo aad ayaa mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed sanadahan dambe aad bay u amaanaysaa. warbaahinta ka faallootay ciyaaraha wadanka Finland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay yeeritaanka qaranka loogu wacay laacib Farxaan Maxamed Cumar iyagoo u rajeeyay nasiib wanaagsan inta uu ku jiro waajibaadka xulka qaranka Soomaaliya ee Asian Star.